السلام عليكم ورحمة الله nala sii jooga ريال oo مدريد nala waxay socda ka dhigan tahay in ay hogaanka ay sii hayso waliba iyadoo hogaankaasi La Liga dalka Spain ay sii hogaaminayso alele toddobaadyada kale ee xiga ayay ciyaari doontaa kulamadan soo socda bal inala daawada way kan sida iskugu soo aadeen kooxaha kulanka labaad toddobaadka labaad ee xiga kooxda Real Madrid ayaa la kulmi doonta dhigeeda kooxda Getafe sidoo kale kooxda Leganes sidoo kale kooxda Villarreal haddaba kulamadaas haddii ay ka soo guuleysato dhigeeda kooxahaasi waxay uga dhigan tahay in ay koobka sidaasi ay ku qaadi doonto kooxda Real Madrid iyadoo ay ka sareyso dhigeeda kooxda Barcelona hal dhibic haddaba kooxda Barcelona ayaa idiin soo tabin doonaa sida ay ugu aadan yihiin kooxaha ee kulamada soo socda bal inala sii jooga oo inala daawada sidatan ay Real Madrid uga aadan yihiin kulanka soo socda ayaa la ciyaari doonta kooxda Barcelona dhigeeda kooxda Atletico Madrid kulan adag ayaa dhexmari doona kooxda Real Atletico Madrid iyo kooxda Barcelona sidoo kale kulanka labaad ee aanan ka liidan ayaa kooxda Villarreal iyo kooxda Barcelona iyadoo kulanka saddexaad ee aanan ka liidan ay tahay kooxda Espanyol haddaba kooxda Barcelona haddii ay soo badiso waxay ka dhigan tahay in ay hogaanka ay kaga heeso dhigeeda kooxda Real Madrid in ay ku soo durugto hal dhibic ayayna ku haysaa kooxda Real Madrid soo kale kooxda Barcelona waxay la kulmi doontaa dhigeeda kooxda Real Betis soo kale waxay la kulmi doontaa dhigeeda kooxda Osasuna soo kale waxay la kulmi doontaa dhigeeda kooxda Deportivo Alaves haddii intaas ay kooxood ay ka soo wada badiso kooxda Barcelona waxay ka dhigan tahay in ay hogaanka kala wareegto Real Madrid waa haddii Real Madrid ay kulan ay kufto haddaba labada kooxood kooxdii kufta waxay ka dhigan tahay in ay ka hadhay koobkaasi Realka La Liga dalka Spain kuna guuleysan doonto kooxdii guulahaas oo idil ku soo wada guuleysta haddaba fikirkaaga inoogu reeb kooxdii badisa ama kooxdii aad isleedahay alay koobkan way qaadi karaysaa sanadan haddaba waxaan leeyahay mar walba anigoo ah Wees Xuseen Usmaan la socod waan barnaamijyada soo socda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh